haddii aan ka hadlo kolley ujeedooyinka ururkan loo aasaasay markaan aragnay baahiyo ay bulshada gobolka Daadmareer u qabaan aasaaska urur dhalinyartiinan imika ururka ah ee ururka noqotay waxaan ka rajaynayaa runtii inay si fiican u shaqeeyaan inay maamulka degmada iyo ka gobolkana la xisaabtamaan cidda xilka loo hayaa waa dhalinyarada runtii anigoo ku hadlaya afka naadiga akhriska waan idinla shaqaynaya insha allah wixii garabkayga ahna waan idinka geysanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanta dib waxaan doonayaa inaan ka hadlo ujeedo kaliya mid waa hambalyo aan u dirayo ururkan cusub ee la aasaasay la daafurayo waxay hor caqabad ku noqonaysaa in meesha ay baaqaado runtii waxaan oran lahaa maanta hawsha aad bilowdeen waa hawl horumar leh oo la taaban karo oo si runtii dhalinyarada u ah horseed u ah marka inaad ugu koraan ahaataan dad tayo leh oo isku kalsoon oo aan khilaaf dhexdooda aanu iman runtii waan hambalyeynaya cidda hawsha ka dambeysay ururada loo asaasaa ururadu waa urur civil society ah iyo ururo political runtii ururkiina saan filayo waxa weeye waa urur ka shaqeeya danaha bulshada oo ka jawaabaya bulshada jawaabaya markaasi runtii waan ku mahad celinayaa anagu kulliday waxaan u gudbay dadka waaweyn aan u noqonay dhalinyarada kulliday oo soconnaa maanta idinka halkii xilliga la marinaya waan isku hambalyeynayaa dhammaan dadka ka soo qayb gashay xafladan shaacinta ururka dhalinyarada iyo horumarinta gobolka Daadmareer ee horse ruuxaanta kulli hadalka hadii lagaga horeeyo nuxurkiisa iyo muhiimadiisa iyo taladiisa iyo kulli waxa u baahay laga hadlo ujeedkiisa kulli waa laga dhameynaya waxa koowaad oo ah in laga hadlo in loo habaleeyo ururka dhalinyarada wadada horumarka cagta saaray gartay caawa in gobolka Daadmareer aan ururo hore aan ka jirin ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh dhamaanteen halkan isugu keenay munaasabadeenna raali ka noqday marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxda gobolka intay nagala joogtaa mar labaadka waxaan u mahad celinayaa bulshooyinka gobolka Daadmareer ee nagala soo qayb gashay shaacinta ururka dhalinyarada ee horseed inta kadib waxaan halkan inoogu talagalay gobolka Daadmareer in badan asaga ayaa la hadlay laakiin isaga ayaa caawina la hadlaya hadaba waxa uu ina leeyahay ama gobolka Daadmareer ina farayo qof walba inta natbuugaaga diyaarsato ama aad maskaxdaada page furato bal dhageyso dabeetana aqliga fayow ee halkan fadhiya asaga ayaa markaas dareemi doona gobolka Daadmareer inuu yahay mid dulman in badan oo kamid ah waxaad maqasheen maalmaha kamid ah ayaan waxaan u sheekaysanay oday waayeel oo kamid ah odayaasha gobolka Daadmareer waxaan u sheegay gobolka Daadmareer magaca lagu yiraahdo Daadmareer inuu yahay qof wax la suurada bilaadanka oo kale sidoo kale inuu yahay qof ku nool mid kamid ah baadiyaha gobolka Daadmareer waxa uu sheegay inuu gobolka Daadmareer yahay qof ku nool meel dugsiga oo aad u diifaysan sidoo kale waxa uu sheegay inaanu dugsiga ka kici doonin ilaa ay hirgalaan waxa uu rabo mooyaane dabeetana waxaan isku dayay bal inaan ka hadliyo oday waxaan uu sheegay ee dugsiga fadhiya dabeetana waynu wada dhageysan doonaa Daadmareer oo dugsiga fadhiya oo la hadlayo bulshadiisa dhageystana waa tane Daadmareer go'aankii garaaradiisa iyo tixagga way soo tiri ka bilow ujeedada baladkaad ku dhalatiyo baydkaagi baanahay magacaan lahaa iyo away muunadaydii taariikhda guunkee marnaan isdhalin rugin bay jibaan lahaan jiray cabkiyee dadkayga maantana maxaa dhacay magacaan lahaa iyo maamuusna daayo mugdi baan ku noolahay nal baa jira baxaayo ilayskiisu muu iman bogcadaan ku loo hibashaan tirsanaya war horumarkan ka socda mabdaqada aynu ku noolay gaar ahaan nagayga Soomaaliland gobolkeena miyuu ka jiraa maya dayartaan ku faaniya way dhashaydii madi aan la dhalan u wad iyo maagoon ayaan ahay idinka ka jawaabiyo agoon yahay in kale erigaan cilaa iyo guri laga hayaamiye waa maxay habaaskani gigi maran maxay dhigay ma garanana wax ku dhigay wallahi maanaan mudnaantiyo xaq u yeelan maamuus
gobolada dhigaygaba dhaqaalaad ku bixisaan anigana dadkayga u dubu socodka liitiyo dulli igu quudhaan saxaraha la diidiyo lama degaan miyaan hay sidee weeye xaalkani war dadkeenu gobolada Somaliland hadday burcata iyo hadday Hargeysa tahayba guryo cadcad ayay ka dhistaan war meherada cadcad ganacsi ayaa uga furan maxaa u diiday gobolkooda inay ka furtaan taa maanta guriga iyo meherada cadcad burca ku leedahay haddii aad wadayna ka furanayd ma ogtahay inay qayb ka qaadan lahayd horumarkiisa nacam maalka noloshu nimbaheerka gaadha anigana saboolnimo samir waasadkayga miyaan guulo aan rabo marna hiigsan karayaa inta ay dadkaygii hoosiis hadhmoodaan taladuna ka hoos tahay beled kale ku faanaan talowmee haldoorkii taariikhda han jiray maanaan milgiyo sharaf dalka magac ku dheerayn gobonimo u dirirkii goortii uu xasuuqiyo dalku saymaada galay kuwa dhiiga kuu sheega soo huray naftoodii maanan hanad lahaan jirin sidaad ii gumaysaan geygayga xoolaa geygeenna oo idil geeshkayga xoolaa inba geesu dhoofsada anigana igaasira gaf cadaana weeye madin faragaraadkii siyaasiga la doortee rugcadaaga sheegtaba waa u wada hanweyntiin sacabka u garaacdaan bacadka u dareertaan doorashada markay tahay gadurabaha gaadhee marka libanta geysaan maxaa uga cabsootaan war dadkeenu maalinta ladhaa hebel baa sharxan maalintaasi guntiga dhiisha iskaga wada xidhayaan mar allaaliya marka uu hebel xilkiisa hantuu kursigiisa tagana markaas ay hoos u wada foorsanayaan muuse inay ka wada cabsanayaan war ceeb maaha inaad dadka markaad mas-uulkan dooratay inaad la xisaabtantaad wax weydiisadee ceeb maaha maxaa uga cabsootaan danta ceeb u moodaan qurba jooga dabadda uu intaa door kaleeta iyo dabaqyada qurxoon iyo daara uu nin kala dhisay daymada ku limisaan anigaa daryeel rabaa hindisaha abuurka iyo hanti weeye garashadu gaara aad u leedahay qaaradaha hayaamee waqtiyada la iigsado aqoon iyo dadaal bay ogow dheefsadeenay dayaxaa ku gaadheen idinkuna dadkayga u haddii aad garaad wacan mar un wada jir guurtaan waa gaadhi leydeen markaad dhegaleeduhu samuhu kaa dhaadhacaa ee dhaliilha u filan warkayga dhambaalkaygana ha doorin duruufaha baahsan iyo dambaa igu xeeran oo welina dood baan qabaa daryeel qaran baan rabaa dareen shacab baan rabaa mas-uul diran baan rabaa dad yahow maa daalantiin maxaa damcigii ku dhacay hankiinu daciif miyaa adoon gaasirin xogtayda ambaba gaar kale u qaadan indhool mana tihid dhagool intaad furto dhaayahaaga ku eeg waaqaca hortaada damiirku markuu shaqeeyo dareenku go'aan ha qaato intaas ayay ku dhan tahay maasadii daad madheedh dee qofkii iska dhaafayay maasada labaad calanka jamhuuriyadda Somaliland ayay ka hadlaysaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaanu ii sheekaysay islaan dabeetana waxaa igu tidhi waqtigii halganka waxaa jiray markii ay ciidamadii ka amar qaadan jiray xoogii maxamed siyaad barre ay deganaayeen koonfurta hawd ee magaalada Oodweyne dabeetana waxaa tidhi waqtiyada ka mid ah ayay soo qabsadeen nin reer baadiye dabeetana kii oo nool ay idinka ka soo xidhan gaari kuwa dagaalka ayaanay dabada ugu xidheen ninkii oo nool ay soo jiideen waxay keeneen halka iminka ay ka dhisantay xanaanada hooyada iyo dhallaanka xaggeeda dambe dabeetana ninkii oo meydkiisu halka ku googay ayaanu jirin qof odhan karaya ninkaas waan garanayaa ambaba ninkaas meydkiisa meesha ka leexiya dabeetana gabadh ka mid ah iminka way dhimatay sida la sheegay Ilaahay u naxariisto laakiin dadka reerooda weyn oo iminka reerkoodu way degan yihiin Oodweyne ayaa maalmaha kamid ah waxa aragtay meydkaas oo yaala magaalada xaggeeda koonfureed gaar ahaan xanaanada hooyada iyo dhallaanka xaggeeda dambe dabeetana waxa ay go'aan ku gaadhay hooyada inantaasi oo markaa inan dhalinyaro ahayd inay meydkaas meesha ka qaado oo maalinba xubin ka mid ah ninkaasi qaado waxay gurigooda meel dhow ugu qoday hog dabeetana maalinba sida ay laf ugu ridaysay ayay ka dhamaystirtay meeshii meydkii taasi waxay ku tusaysaa in caalankan dhibaato loo soo maray laakiin aan si yar hawl yar lagu helin
cabanayaan ka sameeyay markaa maalinta hooyadaasi ay sheekaysay waxaanay u socotaa sida tan calan yahow qurxoon ee 3 midab u gaartay tawxiidka lagu dhigay dhaayihii ku eegaa dhugashada qaboobaan kumaad imanin loof rag baa dhiiga hoorsaday rag baa dhiiga hoorsaday rag baa dheel qabow iyo dhaxan u jiibsaday rag baa dhamac kulayl iyo baaruuda lala dhacay kunbaa ilka loo dhigay kumbaa dhaawicii go'ay kumbaan dheeliyo kicin imisaa laxaad loo dhulka jooga naafaa intay dhaqasho diideen kuu galay dhufaysyada dhimashana ka doorbiday inuu cadow ku dheefsado hal door aan lahayn iyo maxaa hanad la gowracay dusha weerka ugu xidhay gadaad maanta joogtiyo inaad gaadho heer sare imisaa agoon iyo kugu dhaata waayeel dhalanteed ku nool iyo waxaan nahay dhalaan weli maxaa dhalashadaadii calan yahow dhib loo maray maxaa hooyo maataa iyadiyo carruurtii la xasuuqay goordhexe imisaa hagaagsana samagara dadkeennii inta qoorta loo xidhay loo toogtay geeshgeesh imisaa dhaliil iyo dusha eeda loo sudhay harnusqaamin abidkaa weligaa sarreeyoo la cawee daruuraha astaan baad u tahay qaran qurux baad u tahay dhalan dhaqan baad u tahay diin dhidib baad u tahay nabad shacab dhaqasho jecel iyo ciidan dhugasho dheer iyo madax dhaarsan oo mida kaa dhowra gooyaha ku diido qursiga aad bay u fara badan yihiin laakiin intaas bayn caawa kusoo koobaynaa inta kalena waqti ayaynu wada qaadan doonaa insha allah كل هذا الكون سوكو بيا كل هذا الكي أنا وجودن بي ما أنا نشعلين أنا وجودن بيو وهي قبل غيره له أي اللي يجي يعني جا وآد والله يسوي شيء رجي هو رقص اللي فرحت بي كله تجين ماشي يرينه لكن أنا وحن كلا دقائق دونا مرجو وهي أضيق داد مرة لفت جيسي على الميل بوفريابا وكلمة هذا أنا كنا حيعوا أرتا murugadii baa ila tagtee waan soo dhaweynayaa ururkan muxuu ahaa horseed waxaan leeyahay waa ururo loo baahnaa oo gobolku baahi weyn u qabay inuu gobolku yeesho ururo ka shaqeeya horumarinta gobolka Daadmareed waxayna la joogay maalin dhaweyd tababar wasaaradda dhalinyarada ciyaaro ay qabatay waxayna gala joogay hani iyo muxiidiin way joogeen ururka inaan la soo ansixiyo agaasimihii waaxda dhalinyarada way is arkeen waxa laala waxa uga baahdaan Hargeysa inaan uga soo fududeeyo bariyahan waxaynu ugu soo batay in aynu dhalinyaradu ay kala noqotay kooxo ay noqotay imka waxba isu qarimayna gobol iyo degmo xilkan baa ciidan baa haysataa waxa inaynu ka baxnay inagu weynu soo koreynaa dadkii gobolkan lahaa baynu nahay bara saabka gobolka maayarka degmada isuduwayaasha habeen kasto arbaca hadaa tirahada nin walba miiska noo soo fadhiiso alla xisaabtataan maxaad maayar qabatay maxaad ka shaqeysay maxaad xashiiskii ka qabatay maxaad nadaafadii gobolka ka qabatay maxaad wadooyinkii ka qabatay soo fadhiisa barasa maxaad qabatay maxaad laamihii dawladda aad ka qabatay maxaa ku qabsoomay in la xisaab in aniga soo fadhiistaan aad tiraa maxaad qabatay maxaa ku qabsoomay oo ay la xisaabtantaan ayaa loo baahay laakiin inta idigu sii jeedaan leedihiin hebel baan la safan iyo hebel baa caynkana wallahi horumar dheer odayga Daadmareedna qaas fadhiya horumar inaga dheer odayga Daadmareed intuu inoo sheegaysayna halka ka soo kici maayo ubadkeena dambana sida maanta aynu u sii canaanayno qolada dhowr 30 jirka gaadhay Saleebaan ka midka yahay ayuu baa inagana maalinteena la inoo sii canaanaya maanta aynu chance haysanaa maantaynu chance haysanaa aynu ma u diyaar garownaa horumarka gobolkeena aynu daacad ka nahay ma u diyaar garownaa horumarka gobolkeena maanta waxa ugu yar aynu qaban karnaa waxa weeyaan magaaladeennii qashin baa xidhay haddaad halkaa koondarka uga baxdo haddaad koondarka uga baxdo berri toole waa jimce haddaynu u ballanno jimcahaas aynu idhaahno olole nadaafadeed aynu qaadno waynu qaban karaynaa oo shaqo dawlad hooseeyna ku eegin laakiin inaga leh inaynu qabanno aynu ka shaqeyno horumarka gobolkeena inaga inoo taala wax kasta oo gobolka indhaha la idinka arko
ayay bay madaxdana ku shaqaynaysaa wallaahi aan runta idii sheego hadduu baro saabiye hadduu bayari haddaan aniga iyo haddaan isu duwayaan lahay indhaha aan idinkeedi ka aragno haddaa idinku sii jeedaan anaguna waan sii jeedsan waar weynaga jeedaan waxba aynagu soo jeedina kolley dhalinyaradii ugu faraha badneed kolley riwaayadiina way dhowdahay chance yar baan uga faa'iideysanaya halkan kolley dhalinyaradii ciyaaru way joogaan waxaan u sheegayaa horta arrin farxad leh baan u hayaa caawa waxaa laynoo soo ansixiyaa maqlayseen maalmahanba garoonkii stadiumkii insha allahu tacaala isaga dhismihiisi waa la bilaabayaa waxa kale laynoo dhisayaa oo isagana gacanta lagu hayaa agaasimihi waxda dhalinyarada aan ku wada hadalnay gurigii martida dhalinyarada martidan dhalinyaradan idii imanaysa gobolada idinka imanaysa meeshii ay seexan lahaayeen in la idii diyaariyo ayaa iyana iminka gacanta lagu hayaa